wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Maxamuud Xaashi Cabdi ayaa sheegay in madaarka magaalada Berbera ay keeneen mishiinno iyo qalab cusub oo lagu eegayo shantadaha iyo waliba jirka dadka ka dhoofaya madaarka magaalada Berbera si loo sugo amaanka. Wasiirka ayaa waxa uu sheegay in qalabkan ay ula jeedaan sidii madaarka magaalada Berbera uu noqon lahaa mid buuxiya shuruudaha madaar caalamiya, kaasi oo uu sheegay sidoo kale looga jeedo in wadamada aynu jaarka nahay kuwa kale ee uga dhaxeeya xiriirka duulimaadyada diyaaraduhu ay isku haleyn karaan diyaaradaha iyo duulimaadyada soo mara madaarka magaalada Berbera. waxa saaka aan halkan ka bilownay mishiinada baara shandadaha iyo dadkaba lagu baaro dhammaantood ayaa saaka halkan ka howlgalay si rasmi ah markii ugu horeysay magaalada Somaliland madaarka Hargeysa iyo Cigaal International Airport iyo madaarka Berbera labaduba waxay maanta yihiin kuwa buuxinaya nidaamka iyo shuruudaha madaarada caalamiga laga doonayo oo ay ka mid tahay in qalabkan lagu dhigto teknolojiyadu way horumartay shuruudo ayay leeyihiin madaaradu maanta si ay u noqdaan compliant waxa afka qalaad lagu yiraahdo. marka xukuumaddan Somaliland hore ayaa madaarka magaalada Berbera waxa loogu keenay qalab lagu eegayo baasaboorada iyo waliba faraha dadka fingerprinting, taasi oo madaarka magaalada Berbera ka dhaqan gashay dhowrkii bilood ee ugu dambeeyay. dad tiro badan oo ka dhoofa madaarka iyo kuwa ka soo degay qaarkood ayaa sheegay inay si weyn u soo jiitay hawlaha madaarka magaalada Berbera ee maalinta ka dambaysa la sii casriyeeyay haatan ku shaqay inuu noqdo madaar caalami ah, kuwaasi oo ammaan iyo bogaadin soo jeediyay wasaaradda duulista iyo hawada, gaar ahaan wasiirka wasaaradda Maxamuud Xaashi Cabdi. madaarka magaalada Berbera ayaa mooday haatan inuu maalinta ku dambaysa uu ku talaabsanayo horumar taaban karo, kaasi oo aad mooday inaan la gaarin 20 sanadood ee Somaliland ay la soo noqotay xorriyadeeda. dhinaca kalena maareeyaha hay'adda wadooyinka dalka Jamhuuriyadda Somaliland Cabdi Waaxid Cabdiraxmaan ayaa isaguna maanta maran kula kulay madaarka magaalada Berbera. waxa uu sheegay in hawlaha wadooyinka ee Somaliland Road Authority haatan ay meel fiican marayaan, waxaana uu sheegay in haatan gacanta lagu hayo biriishada iyo wadooyinka dhinaca bariga dalka ee gaar ahaan wadada isku xidha magaalooyinka Burco iyo Laascaanood, isagoo sheegay sidoo kalena wadada Hargeysa iyo Berbera isku xidha inay ka socoto hawlo loogu talagalay dayactir lagu sameeyo wadadaas. wadooyinku ku aad u farabaday qaarna waa laamiga qaarna way ku anagu awooddeeda ahaa miisaaniyadii qorshaha sanadkan ku talagalay wadooyin fara badan baa ku jiray ama ahaata kuwa laamiga ahaato ilaa ceergaabo oo aan ka shaqaynay xamaas iyo iftiinid oo kale wadooyin badan oo laamiga ka baxsan oo iyagana wax laga qabtay iyo kuwa laamigaaba kolay baahida lagama wada duwan karo wadooyinkuna kharashaad iyo aad u fara badan ay u baahan yihiin, laakiin sidii anagu itaalkayga awooddeeda ahaa waxbaan ka qabanay waxna way noo harsan yihiin. Cabdisalaan Xariir, Berbera.